ciidamada booliiska madaarka cigaal ee magaalada Hargeysa ayaa dhawaan xabsiga u taxaabay Niciime Axmed Ibraahim Qorane. haddaba aabbaha dhalay Niciime Axmed oo telefishinka Ariel kula hadlay magaalada Hargeysa Axmed Ibraahim Qorane waxa uu ka waramay xariga inantiisa. inanta waxa la xidhay inanta magaceeda waxa la yiraahdaa Niciime Axmed Ibraahim. Niciime Abwaan Qorane waa loo yaqaanaa. waxa la xidhay maalintii sabti xilliyada salaadaha sagaalkii meelahaas ku beegan ayaa la xidhay. inantu waxay ku maqnayd Muqdisho meelaha eedaba u yar shaqayn jirtay dabeeto muddo imika malaha qiyaasaha filaya ilaa dhowr iyo 10 cisho ka hor bay halkan timi. sababta uu timina waxay ahayd aniga xanuunsanayay oo doonay inaan qalliin galo dabeeto ilaa qalliinkaaga ka maqnaan maayaa bay tiri. anigu waxaan jeclaa inay iska joogto waayo war horaa jiray oo aanan hubin oo la odhanayo beri bay TV-ga iyo Soomaali weyn uga ololeysay xaggaas dabeeto taasaa lagu eedeynayaa. sidaa darteed anigu waxaan iska joog laakiin ma aqbalin. almuhim way timi markii ay timina wax dhibi ma gaadhin oo ciidamo qaban laakiin markay noqonaysay ayaa aniga oo dareenkaas igu yar jiro telefoonkeedii dhowr goor garaacay. kolkii hore way iga qabanaysay markii dambe xilli dambe oo sagaalkii ku dhowaan nin askari iga qabtay telefoonkeedii dabeetana wuxuu igu yidhi inantii way xidhan tahay. yaa xidhay baan idhi. wuxuu yidhi qolo sirdoonka gobolka la yidhaahdo baa xidhay. hadda waxay ku xidhan tahay saldhigga madaarka. tagsi baan qaatay waa tegey ninkii ila soo hadlay baan la hadlay ficlan ninka waan isgaranaynay. markaa dabeed shandadaheedii iyo alaabteedii buu ii keenay. xaggee la geynayaa baan ku idhi. wuxuu yidhi waxaa la geynayaa sirdoonka madaxtooye sirdoonka gobolka. dabeeto niman saraakiil ah oo aan isgaranaynay iyo cuqaal iyo ayaan israacanay. waa baadidoon tagnay meeshii baanu tagnay. adigu dadka waa loo diidaya laakiin annaga maadaama ay cuqaal iyo saraakiil nala socotay way noo ogolaadeen inaan u gallo. waa ka soo noqonnay casarkii hooyadeed baa u tagtay waa u diideen. 7 kaale habeenimay ku yidhaahdeen waa u tagnay haddana aniga 2 habeennimaan israacanay. waa noo diideen uma tegi kartaan bayna yidhaahdeen oo waxaa jirta waxbaa laga qorayaa. subaxnimadii baan markaa haddana u tagnay oo shalay ahayd axaddii shalay. axaddii markaa waa noo ogolaadeen inaan u tagno oo xaaladeeda waan soo eegnay. waxay nagu yidhahdeen marka annaga halkan way nooga dhammaatay arrintii waxaa loo gudbinayaa si ay dhida. maxaa lagu haystaa baanu nidhi. waxay nagu yidhaahdeen waxay 2 qodob baanu ku haysanaayoo aaminsanaan Soomaali weyn ay aaminsan tahay. qodobka labaadna waxay yidhaahdeen Facebooka ayay wax ku qortay laakiin iyadu waxay tahay anuu maan qorin. dad baa iga been abuurtay doonayeen inay wanjalaan wasay nagu tidhi. dabeeto shalayto casarkii ayaa loo soo wareejiyey saldhigga dhexe. hadda saldhigga dhexe ayay ku jirtaa. marka saaka waxaan yidhahdeen maxkamaddaanu geynaynaa. maxkamaddii markaa garsoorihii baanu weynay. saasaanu kaga nimi. saasaanay hadda ugu jirtaa jeelka. adigu abwaanna waa tahay oday weynoo dee Somalilandna waa tahay waa og tahay Soomaaliya iyo Somaliland halka xaaladahoodu ay kala taagan yihiin. inantaada lama socon miyaa muuqaalaa jira ay ku hadlayso oo ay leedahay mabda Soomaaliya aan aaminsanahay arrimaha lama socotid miyaa? waan la socdaa. umana haysto inay Soomaali weyn dembi tahay. Somaliland mabdaeeda waad og tahay in qaran madax bannaan iyo arrinkeedu uu yahay. maxaad arrin u tahay iskaga dhatiray? waxa weeyaan madax bannaanida de waa la sheegaa laakiin qofka khasab kuma aha waxa dadku qoysku ka dhashay aaminsan yihiin inuu isna aaminaa sharti maaha khasabna maaha. qofka Somaliland yiraahdo anigu dhibna kuma hayo laakiin mabda'aygu waa Soomaali weyn dee diintii kama bixin. laakiin waxa weeyaan dee marka waxa la dhoobdhoobayo aniga sacabka ii garaac waxaan jeclayna jeclow waxaan nacabahayna nabcow wax aqliga binaadamka qaadan kara ma adduunkana kama jirto.
waxaad og tahay in iminka arrinkaas inantaada lagu xidhay ay somalilan markaad joogta arrintaasi khatarteeda leedahay ma ogid miya wax khatara uma arkayo inaan soomaali weynna aaminsanahay somalilanna aanan dhibaato ku haynin inay wax khatari ku jirto uma arkayo dembina uma arkayo anugu in somalilan iyo soomaaliya dagaalla dhex mareen xaalado adag dhex mareen oo hargeysa iyo meelo badanba wixii ka dhacay aad ogayd oo adiga laftaadu waagaan baata arrimaha aad la socotay miaanay jirin adeer waxa weeye hadday somalilan iyo soomaaliya isdileen horta somalilan iyo soomaaliya ismay dilin waxa isdilay isaaq iyo dawladdii soomaaliya isdilay beelahan iminka somalilan degeni iyo isaaq kuwii isdilay baa haynoo dee reerahan qaar badan baa ka tirsanaa dawladdii soomaaliya oo isaaqa isdilayeen markii SNM jirtay aan ilaha SNM mala saasaa ka yara macaani isaaqa qudhisun waa isdilay oo kii shalayta gawda isku hayay markaa tii hore ee isaaq Soomaaliya iyo SNM isdilayna waa dembi tii halkan ka dhacdayna dembi maaha taasana qalad baan arkaa waxaan arkaa dagaal inuu dagaal yahay midda kale walaalnimadu kuma go'ayso haddaynu maanta isdilo ilmo nabi aadan oo laba ah ayaa isdilay meydkii walaalkii haddana wuu tuuri karay oo degtu ku siin jiray ilaa ilaahay tuka uu soo diray oo tuka kale ka dhintay isagoo aasaya markaa walaalnimadu ma go'ayso dagaal laba reeroo isdilay markaa ama laba ururoo isdilay ama laba maamuloo isdilay ama laba dawladoo isdilay walaalnimadu kuma burburto walaalnimadu way jiraysaa xarigga inantaada khalad miyaad arag khalad baan arkaa khalad baan arkaayo mabda'a qofka laguma xidhi karo dembina kuma qabo haddii qofku ficil kale sameeyo hadday ficil kale samaysay oo qowl iyo ficil ay midun samaysay waa dembi oo la caddeeyo